السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada idinku talagalnay waa barnaamijkeeni habeenimo sabtiga axad soo galayso taariikhduna waa 8 bisha Agosto sanadka 2026 hadaba caawa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn qodobada aan idinku hayo waxa kamid ah Turkiga oo la sheegay inuu markan ka shaqeynayo sidii Masar loogu soo dari lahaa isbahaysiga cusub ee naatada Islaamka ee shalay looga dhawaaqay magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama aritan ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii Israa'iil la ogaaday saldhig weyn oo military inay ka samaysanayso meel xuduudka Masar saaran hadaba wararkan oo ah kuwa hadda soo dhacay barnaamijkan idin kula wadaagi doona waxa soo kale barnaamijka aan idinku soo gudbin doona taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo socdaal aan hore loo sii sheegin ku tagay Israa'iil hadaba sababta socdaalkaasi maxay tahay barnaamijka ayaan ku soo gudbin doona waxa soo kale barnaamijka aan idinku haynaa rasaas iyo hub Mareykanka uu u waday Yurub iyo Aasiya oo la joojiyay iyadoo rasaasta iyo hubka la doonayo in loo wareejiyo ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe hadaba wararkaas ayaa waxay yihiin kuwa hadda soo dhacay barnaamijka ayaan idinku wadaagi doonaa intaan ku jirnana wixii akhbaarada soo kordhawaan idin la socodsiin doona waa 8 bisha 8 2026 barnaamijka waxaan idinku haynaa wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn hadaba qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadanayno iyagoo aad muhiim u ah dhamaantood balse marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Turkiga ayaa la sheegayaa inuu hadda ka dhaadhicinayo Sacuudiga iyo Pakistan dalka ugu horeeya ee isbahaysiga ku soo biiraya in laga dhigo Masar hadaba wadaxaajood hoose ayaa Masar waxay la yeelataa leeyahay Turkiga si markaa arikan wax looga qabto oo Masar loogu soo daro isbahaysiga shakiga laga qabana meesha looga saaro ninka la yiraahdo Sisi kulay waxa meesha ka soo baxa waa la arki doonaa iyo Sacuudiga iyo Pakistan haday aqbali doonaan iyo in kale sheekadaas socota hadaba marka aan idin tuso جنرال ليرادو الدفاع العربي أيا قري شعا ووربحنا اللي تركيا وحو البابدا أفري إن مصر أي كوسو بيرتو إسبهايسيغا مكة دفاع وذجيركا هدبا وربحنا دي ugu بيي soo kordhay waxa la sheegaya madaxweyne ku xigeenka dalka Turkiga ninka leerado Jawdad Yilmaz in uu markaasi aad u danaynayo oo uu sheegay in Turkidu ay doonayaan in ay Masar ku soo biirto sida uu yiri heshiiskan ama isbahaysigan cusub ee ay ku wada jiraan Sacuudiga Turkiga iyo Pakistan hadaba wuxuu sheegay Yilmaz madaxweyne ku xigeenka wadanka Turkiga in Masar ay markaa muhiim u tahay dawlad dhanka ahmiyada istaraatiijiyad weyn leh oo markaa iyadu dhanka militariga iyo juqraafiga intaba muhiim u ah isbahaysiga mas'uul Turki ah ayaa isaguna sheegay in heshiiskan hadda laga shaqeynayo oo ay doonayaan dawlado fara badan oo islaam ah inay soo galaan oo ay ku soo biiraan iyadoo codsiyada ay tahay inay wada ogolaadaan aasaasayaasha heshiiska Turkiga Pakistan iyo Saudi Arabia marka waxa leeyahay nimankii masaarida ahaa dhanka Turkida ay soo mareen Turkida ay waxay yiraahdeen niyo isbahaysigan sababtuna looga tagay maxkamada la ku daro marka hadda Turkiga marka wuxuu gadayaa siyaasad ah inuu Sacuudiga iyo ku qanciyo Pakistan dawladda ugu horeysa ee isbahaysiga soo gali doonta inay noqonayso Masar inkastoo Masar shaki laga qabay Sisi ninka la leeyahay haddana Turkida inay markaa isagu ay soo galin doonaan oo ay dhihi doonaan ninka moodeyseen ma ahane marka xaalku halkaas u barayaale marka madaxweyne ku xigeenka ayaa ka hadlay Turkiga Yilmaz ninka la yiraahdo Jawdad Yilmaz ninkaas sheegay inay Masar muhiim u tahay military ahaan iyo juqraafi ahaan labadaba
inay markaa isbahaysigan ay soo gasho. haddaba waa la arki doonaa Sacuudiga iyo Pakistan haddii ay ka aqbalaan oo Masar ay sidaa ugu biirto. dhanka kalena waxaa socda la leeyahay dowlado badan oo islaama oo danaynaya inay isbahaysiga ka mid noqdaan, inkastoo mid walba ay ka dhug sugayso Mareykan muxuu ka dhihi doonaa isbahaysigan. dowladaha Asia oo kale ku yaala ayaa sida Indonesia iyo Malaysia iyo ayaa iyaguna arikan u dhegtaagaya. Bangladesh oo kale dowlado badan ayaa ayaa doonaya leeyahay inay ku biiraan, kuwa khaliijka qaar ka tirsan. marka waa arki doonaa kulay wixii arrimaha ka soo kordha. qodobka kale muhiimka waxa leeyahay Masar culaysa soo koray, inkastoo nin la wareysanayay aan arkay lahaa Israa'iil sababta ay waxa kan u sameynayso in Masar loo ogolaado isbahaysiga inay gasho. meeshan ciyaarada socoto waa yaabanahay, moogtay waxyaabo badan la qorayaa. waxa leeyahay marka masaarida ninka Siisi la leeyahay ayaa shaki laga qabaa leeyahay. marka hadda markii isbahaysiyadan waxaan soo baxeen, waxa soo bilowday sheeko ah ayay Israa'iil ka sameynaysaa saldhig weyn oo military. saldhig weyn military ka sameynaysaa. satellite sawiray oo Yurub leedahay ayaa soo bandhigay. in muddo waxaan waa laga shaqeynay, laakiin hadda meeshaasay joogtaan leeyahay. marka maxaa leeyahay Masar Israa'iil ay khatar ku jirtaa. marka Masar si loo difaaco waa in isbahaysiga ay gasho. caqligaasna dadaa waxay leeyihiin way isla ogyihiin Siisi iyo Israa'iil way iska warqabaan, dadaa aaminsan. marka wax badanaa marka isku dhex wareeganaya sababta Masar looga saaray iyo sheekadan hadda soo baxaysa. waxyaabo badanaa marka socda, inkastoo Turkidu ay leeyihiin waxa kan si qaldana loo arkay ninkan aan ku soo darno isbahaysiga muhiim u yahay. marka isbahaysiga shuruudo iyo nidaam iyo waxbuu leeyahay, wax kalena waa loo samaynayaa. qofku waxa isbahaysiga ka baxsan miyuu samayn karaa? may aan hawsha marka samayn. marka sheekadaas iyaduna socota. aan idin tuso marka wararkii ugu dambeeyay. isla wargeyska la yiraahdo ad-difaac al-arabi ayaa wuxuu qoray warbixin uu leeyahay Israa'iil waxay saldhig military oo cusub ka samaysanaysaa meel 70 mitir u jirta xuduudda Masar. waa 70 mitir meel u jirta xuduudda Masar. haddaba dayax-gamceed ayaa sawirro ka soo qaaday muujinaya in meeshaasi ay tahay meel ku dhow magaalada la yiraahdo Rafax ee koonfurta marinka Gaza iyo xuduudka Masar meel u dhaxaysa. marka masaafada xuduudda Masar waa 70 mitir ayay u jirtaa leeyahay xuduudda Masar. marka waa 70 mitir 70 mitir ay xuduudda saldhiga ka samaysanaysaa. marka horena heshiisku wuxuu ahaa inaan eriyada la isaga soo dhawaanin. marka meesha iyaduna waxbaa ka jira la leeyahay. kullay wixii cusub way soo kordhi doonaan. arrintan marka ma fursad ayay siin doontaa Masar inay degdeg ugu biirto isbahaysigan oo markii hore banaanka laga dhigay. marka sheekadu marka sheeko wareersan waay. bal adikuna fakar iyo aragti waxaad haysaan noo soo qora. qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanaynaa wuxuu yahay taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa socdaal aan hore loo sii sheegin wuxuu ku tagay Israa'iil. wuxuu caawa kulamo la qaadanayaa madaxda militariga, abaanduulaha ciidanka iyo ragga kale saraakiisha ayuu la qaadanayaa. xog fara badan marka lagama hayo, inkastoo waxyaabaha ujeedada socdaalkiisa ay dadku wax falanqeeya ay leeyihiin. arinta Gaza oo kale muhiim waaye oo Mareykanka uu rabo in ciidamadii nabad ilaalinta iyo howlahoodii waxoodii Israa'iil maadaama ay maalmahan duqaymo ku waday inay xoogaa joojiso arrinta lagala hadlo. arrimahan kale ee socda Iran iyo waxa kan iyo la iska wareysto. arrinta Lebanon oo iyaduna kulankii toddobaad ee la yeeshay wax natiijo uu ka soo bixi waayay dawladda in marka Israa'iil iyaduna ay joojiso maalmahan duqaymo ay halka ka sameeynayay. marka dhowrka arrimood oo mandiqada ah ayay ka wada hadlayaan la leeyahay. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, Al Jazeera waxay leedahay taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa tagaya Israa'iil. halkaasuu tagay. haddaba marka waxaa la sheegay inuu halka gaarayba taliyaha
isagoo kulamo la qaadanaya abaanduulaha ciidanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada Israa'iil ayuu halkaa kula kulmi doonaa. marka dhowrka arrimood ayaa iyaguna soo kordhay oo ku saabsan dhanka ciidamada barnaamijka aynu marinaa. haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa dalabyo rasaas iyo hub iyo waxyaabahan oo Yurub iyo Aasiya ay ka soo dalbadeen Mareykanka oo in loo geeyo ay ahayd ayaa la joojiyay. Mareykanka wax uu ka baxaya ma laha liin asagaaba hub la'aan rasaas iyo waxaan dagaal dhici kara Iiraan lala galo waxba ma hayno. marka maxay tahay Yurub iyo Aasiya waxa la geynaa maxay hal la joojiyaa liin. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray caawa wargeyska la yiraahdo New York Times ayaa qoraya warbixin uu leeyahay rasaas loogu talagalay Aasiya iyo Yurub ayaa la joojiyay dagaalka Iiraan dartiis. New York Times oo soo xiganaysa saraakiil Mareykan ayaa waxay sheegtay rasaas loogu talagalay wadamada Aasiya iyo Yurub ayaa la joojiyay iyadoo ay jirto hoos u dhac weyn oo ku yimid kaydka hubka Mareykanka sababo la xiriira dagaalo dhici kara oo lala galo Iiraan. haddaba waxaa la sheegayaa cawaaqib xumo badan ayaa saameysay dayactirka qalabka iyo niyadda ciidamada Mareykanka iyo Pentagonka oo la sheegay inuu si degdeg ah ugu wareejiyay maraakiibta diyaaradaha cutubyada difaaca cirka in loo sheegay Yurub iyo Aasiya wixii loo waday in loo wareejinayo dhanka bariga dhexe ayaa la leeyahay. gudoomiyaha ciidamada wadajirka ah ayaa Trump uga digay ka hor dagaalkii Iiraan qatarta ka dhalan karta dagaalkaas laakiin Trump uu iska dhaga tiray inkastoo uu digniino ka soo baxayaan dhanka ciidamada wadajirka. Trump wuxuu go'aansaday inuu sii wado dagaalka isagoo aaminsan inuu si dhaqso ah u dhamaan doono dagaalka laakiin arrinka ma dhicin oo dagaalkii wuu ku fogaaday ayaa la leeyahay. kaydka gantaalaha Patriot ee Mareykanka ee hadda jira waa wax ka yar 1.7 ayaa la sheegay halkan marka waa intaas kayd aad u yar ayay haystaan leeyahay Mareykanka. marka waa arkaysaa Mareykanka hubkii oo Yurub iyo Aasiya ka soo dalbadeen kulli waa la joojiyay. makhaziinadii hubka baa faaruq ah maxaa tahay hubkan aan dawladahan siineen dawlado hub lacag dhiibtay oo hub in loo raray ahayd kulli waa la joojiyay leeyahay sida ay New York Times ka soo xiganayso mas'uuliyiin Mareykan. marka jawigu marka waa iska saas xaalku waa xaal iska dagaal inkastoo caawa warar kale cusub aan soo bixin wax heshiisoo laakiin Hormuz la saxiixay ma jiraan la soco. Oman iyo Iiraan way saxiixeen rawaantaas ayaa haddana qoraxdii ku dhacday caawa hadda kullay waa arki doonaa ilaa berito wax heshiis haddii la gaaro. inkastoo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan warkooda uu caddaa barnaamijkii hore aynu ku soo qaadanay ay leeyihiin shuruudaheena haddaan la fulin Hormuz cid furi karta male. marka warkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay intaynu kala maqnayn. haddii alla idmo barnaamijyadayda soo socda ayaanu wixii cusub ku kala war qaadan doonaa. like gareeya oo share gareeya barnaamijka asxaabay fakarkiina aragtidiinana waa muhiim. inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.